waa muuqaal yar oo soo koobaya xaaladda dhabta ah ay wajahayaan maanta bulshada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Daawada ku soo dhawow warbixintana waa aynu ku eegi doono xaaladda dhabta ah ee maanta ka jirta magaalada Beledweyne iyadoo webiga Shabeelle uu fatahaad xooggan ka sameeyay habeenkii xalay ahaa magaaladaasi. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka taagan xaalad aad u cakiran iyadoona ay dadku barakacayaan kadib markii fatahaad xooggan uu sameeyay webiga Shabeelle iyadoona maanta la arkayo shacabka oo barakac xooggan sameynaya meelaha sida xooggan fatahaadda uga geystay webiga Shabeelle ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Buundaweyn iyo sidoo kale xaafadda Howlwadaag iyo qaybo ka mid ah magaalada iyadoona la arkayo waalidiin iyo caruur garbaha is haysta kuwaasi oo ka barakacaya biyaha uu fatahayo webiga. sidoo kale webiga ayaa fatahaad xooggan ka sameeyay qaybo badan oo ka mid ah magaalada sida ay muujinayaan muuqaallo laga soo duubay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoona bulshadu ay ka cabsi qabaan in fatahaaddu ay sii xoogaysato. arrintan waxa ay ku soo beegmaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay cabsi xooggan ay wajahayeen bulshada magaalada taasi oo ku aadan fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle hase ahaatee xalay uu fatahaad ka sameeyay inta badan magaalada Beledweyne waxaana maanta bulshada reer Beledweyne ay u tahay maalin qax ah taasi oo ay ka barakacayaan guryahoodii iyagoona tagaya daafaha magaalada oo aysan biyuhu si xooggan u gaarin. halkan haddaad ila soo gaartay sii share garay muuqaalkan oo la wadaag saaxiibada innaguna waxaan ku dadaali doonaa inaan kula wadaagno wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Beledweyne iyo fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle.